boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow oo kamid ah madax dhaqameedka beelaha Habarjeclo ayaa markii ugu horeysay waxa uu boqorku shaaca ka qaaday in beesha Garxajis aanay uga baahneen xilligani inay dagaal galiyaan iyo rasaas balse ay taa bedelkeeda ay beeshu uga baahan tahay tolnimo qalbiga ah dagaalka ay Habarjeclo ku jirto ee muddooyinka ugu dambeeyay deegaanka Boqorkeyn ayaa boqorku waxa uu ku sheegay in ay xukuumaddu ay wado kana faa'iideysanayso kacdoon shacab iyadoo halkaasi ka raadinaysa muddo kororsi waa sida uu boqorku sheegay boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow oo kamid ah madax dhaqameedka reer Soomaaliland gaar ahaan beesha Habarjeclo ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka waxaana boqor Buurmadow uu ku dheeraaday heshiiskii laga gaaray jabhadii buurta Gacal Libaax iyo sidoo kale go'aankii ay beesha Habarjeclo ay buurta kaga soo rogtay jabhadii hubaysneed ee ka soo horjeeday go'aankii ay komishanku ka soo saareen doorashadii lagu muransanaa ee ururada boqor Cismaan Buurmadow waxa kale oo uu mahadnaqay hogaamiyihii jabhadaasi Cornel Ofareen iyo gudida beelaha Garxajis Buurmadow oo xalay khudbad ka jeediyay xaflad ka dhacday magaalada London ee dalka UK ayaa shaaca ka qaaday in Soomaaliland aanay ka dhacayn wax doorasho ah shacbiga ayuu ugu baaqay inay fadhiga ka kacaan sameeyaan kacdoon shacab dagaalada laascaanood ayaa Buurmadow waxa uu ku eedeeyay gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Salebaan Maxamuud Aadan iyo sidoo kale madaxweynaha hadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ugu dambeyntii boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow ayaa khudbadiisa waxa uu ku soo gabagabeeyay in Soomaaliland aanay dhibaato iyo colaado aanay ka baxayn inta ay hor taagan yihiin Salebaan Maxamuud Aadan gudoomiyaha golaha guurtida iyo sidoo kale madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi Soomaaliland saxada hayso Muuse Biixi Salebaan gaal ugu weeyeen saxaradaas suuliga la geeyo oo lagu furo gudaafada lagu gidamaaye Soomaaliland doorasho ka dhacayso Soomaaliland wanaag ma helayso Soomaaliland ka joogsan maayo dhibaato ka joogsan mayso